السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركز لي برنامج كنا حكمتها قيبتيسي استحاد مرمرك قار نلاشك مفضوضة انتي هوري إنك عيا كادت انتي هوري صاحبك رنطهي ما هكان وحول بوصمية سيو كل دبال دقا مالك قوشادا بل سيوا كان وحونو صمية سياند قول دريسان عندها مانقابك وحي قبطان عاناه وتكوه اسكدادين balse maskaxda wayaaragu waxay ka fikirtaa cimriga dheer ee tukuhu noolaan karo. dumarku waa sida shinnida oo haddii guri qurxoon loo dhigo oo xaraf badan loo geeyo waxa laga helaa midab macaan, laakiin haddii qasab gacanta loogu dhigo qaniinyadeeda xanuunka badan lama mahadiyo. libaxu iskuma keeni karo inuu gaarsi tago iyo in ilmihiisa ilaashado. ixtiraamku waa lahjada ugu ballaaran luqadda gobonimada. waxaa loo waraabiyaa inuu qurux badnaado. geedaha waaweynna waxaa loo waraabiyaa in midho laga gurto. taas ayaa farqiga u dhexeeya danta iyo xaragada. inaad aamusto oo dadku doqon ku maleeyaan ayaa ka fiican inaad hadasho oo dadku xaqiiqsadaan malahooda. hurdo lagama dhargo, daalna looma dhinto. indheergaradnimadu ma aha kala garashada qalad iyo sax, waa kala garashada laba qalad mid ka sii qaldan. kalsoonida naftu ma aha inaad mar walba saxnaatid, waa inaanad ka cabsanin amaba ka baqanin inaad qaldanto. waxaa jira laba qof oo aan qalad gelin, waa mid dhintay iyo kaa weli dhalan. intaas ayaan kusoo koobaynaa